fadiilatu sheekh xasan Omar oo kamida culumoodinka degmada Caabudwaaq ayaa maantay oo axada waxa uu si anbaqaday casharada taxanaha ee fiqiga sheekh ayaa waxa uu soo jeediyay cashar la xiriira baab najaasa haddaba daawadayaal ku soo dhawaada casharkaasi oo kooban kala garto wixii Ilaahay amray oo sidii Ilaahay u amray uu aqoonsado inuu garto wixii Ilaahay ka reebay oo sidii Ilaahay uga reebay uga haro sida daraadeed baa casharkan diiniga oo aad loo gaabiyay leedin kugu soo gudbiyaa waxa muhiim ah marka inuu qof waliba ka saayqaato uusa cilmiga u fariisanayno kitaabtii uu san raacanayn oo tacliintii waajibka ku ahayd ruuxu uu san u fariisanayn waxa laga maarmaana meelaha loogu daneeyay asaga oo loogu soo koobay inuu ka dhaga qaado oo dhageysto dii marka 10 daqiiqo oo aadka u kooban ay yaraato oo ruuxu uu siiraado waxbaad ka daahaysaa hada wax ka muhiimsan sidii uu Ilaahay u caabudi lahaa sidoo Ilaahay sharciisa ugu dhaqmi lahaa oo macaamiltami lahaa wax ka qaalisan garan maayo marka ikhwaani filaahi aan ka faa'iideysano waqtigu waa soconayaa 10 daqiiqo oo culimadu ay qorsheeyeen ruux walowba ka faa'iideyso masaa'isha hadii ku taqaanay lagu sheegana waa xasuusin kuwa ka maqna hadii lagu sheegana waa cilmi kororsi labada goorba kaaga darimayso marka inaad dhageysataa haboon oo waqtiga 10 daqiiqo asagaaba yare aad meel kale oo inta ka raqiisanaado ku dhameeynin insha Allah ta'ala waxaan u gudbayaa marka casharkii baan u gudbayaa waxaan soo qaadanay xaydkii waxa shal casharkii ka dhimanaa nifaaska asoo waa dhiig dhalmaha ama dhiigga umulaha oo waa adamul kharij min qubul almar'ati aqiba alwilada marka haweenku dhasho ciribteeda dhiigga yimaada ayaa waxa la yiraahdaa nifaas marka midka ilmaha la socdana ma ahan kan ka soo hormarana ma ahan xataa haday mataana yihiin markii labadii mataanood ay soo socmaan ka bacdi dhiigga soo baxa kaasa nifaas la yiraahdaa muddada ugu yar ee uu joogi karaana waa ilbiriqsi inuu ku ekaado waa laga yaabaa inuu ka batana waa suurtowdaa qaalibka haweenku say u badan yihiin waa 40 maalmood ay u badan yihiin meesha ugu badan uu gaari karana waa 60 maalmood uu gaari kara marka qaaliban waa 40 oo waa taliya haweenta 40 kiiba ku jirtaa 40 ka dhiigi waxa jooga nifaaska oo dhiig dhalmeedka haba jooga qaaru ka bato waa dhici kartaa oo 60 uu gaaro laakiin inta kama bato wama zaad calayha fadamu fasad wixii inta ka bata waa dhiiga leedamu fasad asagu marka damul fasad iyo istihaado iyo kuwa yowgaas kitaabkeenu kama hadlayno kitaabku waa mukhtasar marka ayaga iyo ahkaamtooda kutubta dambe ayaa lagu faahfaahin doonaa ama muhaadarooyin kale iyo jalsooyin kale looga hadli doonaa inta hadaan u gudubno baabkii xaydka iyo nifaaska waxaan u gudbaynaa baabu najaasati wa izaalatiha najaasada iyo sida la isaga zuuliyo maxaa najaasa iyo sida la isaga zuulinaya oo najaasada la isaga mayraya najaasa marka la yiraahdo luqahan waa kullu mustaqdar wax kasta oo la qurunsado luqada guud marka loo fiiriyo waa najaasa carabta xageeda ama sharcigeena waa mustaqdar yamna'u sihhata as-salati min haythu la murakhisa fihi wa shay la qurmaysanayo hadana diidaya salaadi inay ansaxdo ruuxa u diidaya hadaan ruqso oolin oo ruqsooyin marmar baa laga yaabaa inay ruqas timaado ruuxi u fasaxaysa iyadoo najaasadii joogto inuu salaadiina tukado مثلا بوح اسكو ظاهري هدو وايو او كله صلاه وقت الحرمه وتكال ليه وقت الحرمه تكون صلاه دينا سو عليو هدو سو ديب سو تكوي صلاه مرنا ان laga taga lama ogola maxaa yeelay waqtigan ilaahay ba salaadan jideeyay oo umada ku farad yeelay ruuxu si kasto xaaladiisu tahay inuu salaada gutaal rabo oo la yimaado marka haday dhacdo inaad waxa ku daahiriso aad weydo maryaha
ayaga waad iska tuurin oo adoo qaawan baa tukan salaadaadina waa ansaxaysaa ay soo celin maysid haddaad weydo mariyo waxaad ku daahiriso ay najaaso yihiin jirkaaga hadduu najaaso yahayna oo najaaso gaartay asaga waxaad samaynaysaa haddaad waxaad isaga daahiriso helayso inaad iska daahiriso waa waajib si aad u tukato haddaad weydo waxaad ku daahirisana salaadii waa tukanaysaa oo sharciga aad baneeyay ruuxaas inuu salaadii tukado hadhowna salaada uu soo qadaynayaa dib uu soo celinayaayo maxaa yeelay salaadii uu tukaday de sixadii shuruudii loo baahnaa oo sixada qaar baa maqnaa fiiri marka nijaaso waxaasaa la yidhaahdaa wax salaadii ruux inuu tukado u diidaya sharci ahaan yaa la yidhaahdaa kow sheekheena marka kitaabkan maatinka iska leh asagu nidaam buu u sameeyey qawaacid ah wuxuu yidhi alxayawaanaatu kulluhaa daahiratun ila alkalbi waalkhanziir wuxuu yidhi ila alkalba waalkhanziira miya wamaa yatawalladu minhuma xayawaanaadkoo dhan wuxuu yidhi waa daahir ilaa eyga iyo doofaarka mooyaane xayawaan waxaa leeyahay wixii nool oo noolo ah oo nafa ku jirta waxaa la yidhaahdaa waa xayawaan cumuumka luuqadda saas ku yahay luuqadda caam ahaan waxaa weeye xayawaanku wixii noolaha la yidhaahdaa kow marka wax alla wixii nool oo nafa ku jirta kulligood waa daahir ilaa waxaa laga soo reebayaa eyga iyo doofaarka ayagu waa nijaaso waa noole haddana najaasaa labadoodaasa la sheegay waxa ayaga la mid ah wixii ayagu iska dhalaan oo ey iyo doofaar baa isu tegay waxbay iska dhaleen asaguna waa sidaasoo kale waa nijaaso waxaa la mid ah midkood walow maca xayawaanin aakhara hadduu rabo xayawaan kale ha ka dhalee midkood hadduu uu waxa weeye wax dhalo xayawaan daahira oo matalan ri iyo orgi oo kale ri iyo ey oo kale hadday iska dhalaan ey nin ah baa ribooday ilmay dhasho ilmahaas suuradu raba ha lahaado waxaan ha ahaado orgi ha ahaado ridi ha u ekaado asna waa najaaso najaasada wuxuu ku raacahayaa eyga ayuu ku raacahayaa marka xayawaanka waa wixii noole kulligii waa daahir ilaa labadaas xayawaan iyo wixii ayaga faracooda gala mooye labadaa xayawaan iyo wixii faracooda gala waa ayagu waa najaaso wixii meyti ah meytiduna waxa weeye maa zaalat xayaatu bikayri dakaan sharciy waxa noloshii waayey baa meyti la yidhaahdaa ayaguna waa najaaso wax alla wixii noloshu ka suushay ee gowrac sharciya aan marin waxaa la yidhaha ayagu waa najaaso waxaa laga soo reebaa bini aadamka asagu nolol iyo geeriba waa daahir qofku hadduu bini aadam yahay nolol iyo geeriba waa daahir waxaa kaloo asna laga soo reebayaa samaga malayga asna waa daahir waxaa laga soo reebayaa ayaxa saddexdooda sharciga ka soo reebay wixii kale oo meyti noqdaa waa najaaso wey waxaa kaloo ayaguna najaaso ah wa kullu maa kharaja min asabiilayn najisun wax alla wixii ka soo baxa labada jid meeshaan bini aadamku uu ka kaadiyo iyo meesha dambe uu ka saxaroodo labadaa jid wax alla wixii ka soo baxa ayaguna waa najaaso waxaa iyana laga soo reebayaa manida iyo neefta labadaasaa laga soo reebayaa oo labadoodaas ayagu najaaso ma aha waa daahir manidu waa daahir riixda neeftaan ka soo baxaysa ruuxa calooshiisa gudaha ka soo baxaysa iyana waa daahir waxaa kaloo laga soo reebayaa quruuraxa ama dhagaxa ka soo baxaya ruuxa bini aadamka qubulkiisa ama duburkiisa ka soo baxaya aan doorsoomin macnaha waxaa weeye aan ka guntamin min albawli kaadi xaggeeda aan ka samaysmin haddii dhagaxu markii hore kaadi guntantay uu yahay sida hadda midka dadka laga qaloo kaloo laga soo bixiyo keliyaha iyo laga soo saaro kuwaas waa kaadi meesha ku aruurtay oo kale kuwaas marka hadduu kaadi guntantay hadduu yahay dhagaxu so waa najaaso ama hadduu dhagax si kale qofku ugu liqay uu yahay oo sidiisaas ku soo baxay wuxuu noqonayaa mutanajis buu noqonayaa hadhow dahaaru aqbalaya mutanajiskii najaasaduna waxay ku kala duwan yihiin shayga najaasada ahu dahaaro ma aqbalo ilaa wax laga soo reebo mooye shayga mutanajiskaahuse waa daahirsamaa maradaadaana hadda mutanajis noqon karta
jirkaaga noqon kara wixii alla wixii nijaasa gaarto waxa la yiraahdaa mutanajis najaasana waxa la yiraahdaa wixii najisul ayna oo ayntooda ay nijaaso tahay marka quruuruxaas asagu hadduu kaadi ka samaysmayna waa najisul ayn hadduu kaadi ka samaysmayna waxa weeye waa mutanajis raashinka ruuxu cunayo hadduu asagoo oo tuu cuno uu caloosh isku bedelin ee asagoo sidiisiiya digir qalalan ama siga qalalan uu cuno oo hadhow gadaal uu ka dhigo waxay leeyihiin kitaabtu hadday masagadaas dib u baxayso oo quwwatul imbaad dambe ay yeelanayso wax nool hadhow ay noqonayso waa mutanajis haddii ay baabaaday laakiin oo meeshii calooshii intii ku jirtay wax ay doorsoontay oo taxwiil ku dhacayna waa najaasul ayn najisul ayn haddii laakiin ay weli nooshahay xabadii waa mutanajis meelahaas waa looga hadlaa intaas marka waa aqsaamun najis waxyaabaha najaasada aqsaamtoodii ayuu sheekhu nooga hadlay marka waa muhiim in ogaato waxa dhiman oo hadda sheekhu uu ka hadlay waxa la yiraahdaa al-maa'i'ul muskir shayga maa'ica ee haddana muskirka shaygu haduu yahay shay dareera ah haddana uu yahay muskir oo maandooriye uu yahay waana maandooriye waana dareerahaya waa najaas sabuna khamradana kamida nabiidka kamida wax alla wixii muskira oo dareerahaya oo muskir waxa leeyahay wixii maanka dooriye wixii maandooriya haddana dareerahaya dhammaantood waxay noqonayaan mutanajis bay noqonayaan mutanajis bay noqonayaan waxa la mid ah iyagana xayawaanka waxa ka yimaada oo fadalaatul xayawaan sida digadiisa iyo kaadidiisa ayaguna waa nijaaso ayaguna najisul ayn weey digada xayawaanka geel iyo ari loo wuxuu rabaado binaadinkaas kiisa ka soo hadalnay waxa kale oo kamid ah waxyaabaha doorsoonku ku dhacay matalanba matagiyo kale matagu caani iyo markuu cabo qofku calooshiisa gala markuu soo matago aysna waa mutanajis waa najis weey najisul ayn weey najisul ayn weey waxyaabaha soo dhamarka nijaasadu soo koobidna waa loo sameeyaa hadda kitaabkeena waa soo dhaweeyay kuwa ka sii koobana waa jiraan laakiin muhiimadu waxa weeye waxa inta hadda aan sheegnay weeye waxyaabo kale hadda aan ka tagaynay jiraan waa laga yaabaa laakiin sida la isaga daahirinayo iyo kayfiyaadkeedana casharada dambe ku qaadan doona insha Allah ta'ala sallallahu alayhi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillah rabbil alamin casharada caynkani oo kala ayaa ahmeedoon ugu fadhiyay bulshada muslimiinta ah yaxya farxaan aadan warbaahinta mustaqim TV magaalada Caabud Waaq